السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكوان لبضا ugu daran ee qofku uu ku gala naar ama uu uga badbaado naar nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam laba qofka ii ballan qaado waxaan anigana u ballan qaadaa jinno kow qofkii carabkiisa ilaaliyo labo qofkii farjigiisa ilaaliyo xubinkiisa taranka qofkii waardiyeeyo ee aan xaaraan iyo meel aan raali looga ahayn aan ku ridin labadaas qofka ii ballan qaado waxaan uga abaalgudaa oo ilaahay u weydiinaa jinno marka walaalayaal haddii aan rabno inaan jinnada ilaahay helno labadaas aan waardiyeyno waa kow horta carabka iyo farjiga waxaa laga yaabaa inuu muddo male laakiin waqti waxaa jirto xoogaa qofku shahwigiisa ay yaraato mugi qofku da'da 60-70 uu gaaro xoogaa wuxuu helaa kaalmo oo dadka inta badan da'daas ugu dambeeyo xoogaa xubigooda iyo shahwigooda xoogaa waa soo yaraataa laakiin carabka qofku inta uu ka dhinto waa warrami kariyaa qofku inta uu warrami karin waa xama kariyaa muga walaalayaal da kasta ahaataba lamadaas aan xooga saarno inaan waardiyeyno aan afkayna ilaashano haddii kale aakhire waxaa dhacayso dadkii uu yiri asxaabtu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri areey ma taqaaniin cayr mugaasay yireen cayr waxaan u naqaanaa qof aan baasa haysan oo shiid ah mugaasoo wuxuu ugu jawaabay nabigu maya saas ma ahan waxaa waaye cayr wuxuu yiri waxaa waaye qofka aakhire yimiday inuu soo shaqaystay haddana wixii uu soo shaqaystay aan koob shaah ka cabin aakhiro waa soo shaqaysay soom badanaad la timiday salaad badanaad la timiday xaj badanaad la timiday sadaqa badanaad la timiday wax walba aad jinno ku geli laheeday ayaad ku soo qabsatay adduunyada halkii aad ka sugaysay in jawaabtoodii iyo abaalmarkoodii lagu siiyo ayaa waxaa inta soo istaagay qofaad xamatay darafaa loo gooyey qofaad caysay darafaa loo gooyey qofaad liiday darafaa loo gooyey qofaad baaje ku taagtay darafaa loo gooyey mugaasaa wixii aad haysatay in aad jinno ku gashay iska dhaafe adiga ayaaba waxaa lagugu yeeshay deyn aa lagu raacday tusaale haddii aan ku sarrifno qofku hadduu qof xanto haddii aan dhahno kiilo naara ou gatay haddii aan dhahno hadduu qof xanto tusaale ahaan qofku hadduu wax sadaqaysto kiilo bariisana wuxuu jinnada u dhowaaday tilaab ayuu jinnada u dhowaaday muga haddaad aakhiro tagto waxaa lagu leeyahay qofkan kiilo bariis oo sadaqaystay jinnada wuxuu u dhowaaday tilaab laakiin dhinaca kale kiilo qofuu xantay ha laga gooyo muga waxaa waaye iqra kitaabaka kafaa binafsika alyawm haddii la yidhaah adigu isxisaabi in aad jinno hesho iskalaale waxaaba dhacaysa in deyn lagugu yeesho muga qof walbow oo i dhegaysanayo ama haddii alla ku ron yahay warkaan ou gaaro carabkaaga iyo caarkaaga ilaali intaas ayaa inoo ballama asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu